Soomaaliya waxa maanta cabaad ka baxayay ay xataa gaadhay heer ay taado safiirkii u fadhiyay Itoobiya aan ka soo baxo waa xumaan iyo xaasidnimo iyo Soomaaliland nacayb safiirada baa guran doontaan baan filayaa safiirada inaas ka soo gurta hadii Soomaali midnimadeed la doonayo in dadka ka shaqeeyay annaga ahaayeen iyo abayaashaya iyo wayaashaya ahaayeen maanta hadii ay Soomaalinimo midnimadeeda laga shaqeeyay cid gacanta ku haysa waa annaga runtii meel aan ku jirin laga baaro oo Soomaali mid qaarna la culaadiyo qaarna la soo dhaweystaa runtii meesha ma taalo anigu magacaygu yahay siyaasi Suldaan Muuse Bare waxaan doonayaa inaan dhowr kulmadood ka ilaahdo heshiiskii taariikhiga ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo kula galay heshiiska afgaradka dowladda federaalka ah Itoobiya taariikhdu markay ahayd 1 bisha 2024 ee shalay toole taasoo runtii aragti fara badan iyo siyaabo fara badan dadku uga soo falceliyeen runtii dadkaas isugu jiray siyaasiyiin iyo dawlado iyo shacabba alxamdulillah rabbil caalamiin anoo ku hadlay afka dhammaan dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo jecel horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland danaynaysana in dalkan hor u socdo waxaanu si mug iyo miisaan loo soo dhaweynaynaa taageersanahay taabacsannahay dhammaan heshiisyada taariikhiga ee dalkani mustaqbalkiisa iyo ka shaqeynaya horumarkiisaba xukuumadda waxaan u dooranay oo aanu ku ayideynaa dhammaanba inay la geli karto heshiisyo caalami ah cid kasta oo ay u aragto inay ugu jirto ama ay ka shaqeynayso danta Jamhuuriyadda Soomaaliland caalamka heshiisyada la wada galaa waa la wada galaa dalalka jaarkana way wada galaan kuwa kala fogna way galaan siyaasaddu waa intanis gabigeedu waa dan bay ku salaysan tahay kuma salaysnaa magaranaysa diin iyo dhaqan iyo qabiil iyo qoomiyad toona loo meego sidaa darteed waxaan arkay dad badan oo xasaasiyad ka qaaday oo qaarkood ay lahaayeen ama ay ku celcelinayeen heshiiskaas waa xaraan dadkaas oo laba isugu jiray qolo aan fahminba heshiiskani wuxuu yahay iyo waxa inoogu jira iyo waxaanu ka faa'iidi karno iyo qolo ay ka tahay xaasidnimo sida qolada koonfureed oo iyagu markastaba horumarka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad uga soo horjeesta xasaasiyad badanna ka qaba hadii aynu tallaabo hore u qaadno runtii anoo marka kala qaadqaadaya madaxweynaha si guud waan ku hambalyeeynaa in badan baa la dhaliilayay oo madaxweynuhu lixii sano hore wax la lahaa wax macno badan oo horumar uu dalka ka qabtay ma jirto laakiin inuu istaba qabtay oo tabayaaqadii iyo gabagabadiisii madaxleedkiisa uu guulo waaweyn oo taariikhi ah soo hooyay baad moodaa waan ku hambalyeeynaa qolada Soomaaliya waxaan leeyahay runtii midnimo Soomaaliyeed iyo walaaltinimo Soomaaliyeed iyo Soomaali jacayl haddii inuu jirto halka ay taalo ama laga helayo horta waa Soomaaliland dadka Soomaali kala dilay ee kala fogeeyay ee kala faquuqayna maanta inay ku meereystaan midnimo ka shaqeynayna iyo walaaltinimo aanu raadinaynaa runtii waa wax laga xumaado dawladda Soomaaliya markii DP World heshiiska dawladda hore la galisay dawladda xilliga ka jirtay Soomaaliya dagaal bay ku soo qaaday dagaalkaas oo ciriyo dhul baaha runtii haddana markii loo joojin waayay maanta faa'iidadeedii iyo horumarkeedii iyo wanaagii ay wadada in barnaamijkaas inoo soo kordhiyay haday wadada tahay iyo haday dekadii berbera tahayba cidda ma faasatay maalaysa horta waa inaga si adirteed waxaan leeyahay inagu iyo ku kala qaybsamin horumarka dalkeena iyo dadkeena soo kordhiya mucaarad iyo muxaafidna arrintan ma laha aynu si midaysan aynu uga wada shaqeyno si adirteed Soomaaliya wixii ay maanta waxa dhiriga maxaa karka ka keenay waa kuleylka bali Soomaaliya waxa maanta cabaad ka baxayay ay xataa gaadhay heer ay taado safiirkii u fadhiyay Itoobiya aan ka soo baxo wax kale ma aha wanaag Soomaaliyeedna ma aha waa xumaan iyo xaasidnimo iyo Soomaaliland nacayb runtii hadii ay ka shaqeynayso Soomaaliya wanaag Soomaaliyeed ka shaqeynayso nasiib darro xukuumaddii ka horeysay waxay si dhib yar oo fudud oo sahlan isaga saxeexday oo heshiis ula gashay oo ay u banaysay inay qaadato Eritrea oo ay Djibouti kaga maqan yahay dhul iyo dadba
runtii haddii walaaltinimo jirto taas Djibouti maana Soomaali ka mid ahayn maana dal Soomaaliyeed ahayn maana dad Soomaaliyeed ahayn maana walaaltinimo naga dhaxaynin miyaan wanaag naga dhaxaynin miinan wax soo hay haddii jawaabtu tahay ha maxaa iyadoo Djibouti iyo Eritrea ay dhulna isku hayeen oo wali dhulka Djibouti lahayd nafana kaga maqnaayeen sidee bay ula safatay dawladda Soomaaliya Eritrea runtii waxay taasi marxaati madoon ka dhigaysaa inaanay Soomaali jacayl ka hayne ay ka tahay dawladda Soomaaliya ee federaalka ah runtii waana awood badan badayadu lahayn maanta waxay qaban kartaa ay tahay inay cambaarayso ama meelaha naga soo dhaleecayso kaliya waxa weeyaan waa xaasidnimo Soomaali jacaylka maaha haddii Soomaali midnimadeed la doonayay dadka ka shaqeeyay annaga ahaayeen yaa wayaasha yahayn maanta haddii ay Soomaalinimo midnimadeeda laga shaqeeyay cidda gacanta ku haysa waa annaga runtii meel aan ku jirin laga baaro oo Soomaali mid qaarna la culaadiyo qaarna la soo dhaweystaa runtii meesha ma taalo dawladda federaalka Soomaaliya waxaanu ku dhaliilayaa oo aan uga digayaa inay ka dayso faragelinta waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan sidoo kale leeyahay samriya iimaan Allah idinka siiyo Soomaaliland way socotay ducayaha bartoono ma baahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdina wuu ku mahadsan yahay hogaaminta fiican iyo ku dhiirashada fiican ee xukuumadihii ka horeeyay ay tahli kari waayeen ama ay awoodi waayeen ee uu bareeray inuu isagu maanta dalkaynu jaarkanahay ee Ethiopia maadaama adduunku dadana uu yahay oodana wax la isay isu xigaan bay suxqaane Ethiopia bad bay u baahan tahay inaguna wuxuu u baahan nahay inaan ictiraaf helo maalgelin caalami ah helo indhaha caalamku inagu soo jeestaan idan dadka aaminsan in Ethiopia iyadaaba la caawiyaa dad baa taagan waa la caawiyaa dalalka waaweyn waa la caawiyaa Ethiopia haddii la caawiyo de maanta Soomaaliland iyadu way ka dhaqaale badan tahay idan hatta hadayna dhaqaale ka faa'iidin oo halkaas ka dhigno inaan dhaqaale ka faa'iideynin maal deganaanshaha ay Ethiopia qayb ka ahaato inay aynu dekadaheena qayb ka siinaa indhaha caalamka inuu soo jiidiyaan balna anigu waxaan aaminsanahay oo aan aragti ahaan qabaa in heshiis lala galo Ethiopia in lala gali karo dawlado kale in Afrika iyo Asia Somaliland caalamka markii hore ka xidhxidhneede inaynu isu furfurno oo ay xukuumaduna ka shaqeyso shacabkuna soo dhaweeyo baan taageersana waxaan kaliya oo aan anigu adkeynaya heshiisyada marka la gelayo xukuumaddu habbayaamis oo ha cadayso waxay Ethiopia la soo saxaatay dadka shacabka reer Soomaaliland iyo golayaasha qarankaba si hufan ha ugu soo bandhigto iyadoo waxba qarinaynin idan haddii ay meesha madmadow soo galo cadawgu wuxuu ga faa'iideysanayaa inuu shacabka iyo xukuumadda iska horkeeno sidaa darteed dawladdu ha ka digtoonaato oo mar walba ka taxadirto inay ay waxay dadka kula soo heshiinayso ay in kamida qariso waayo wax la xalaal iftiin baa la qashaa madaxweyne heshiisyada aad la galayso ama kuwa Djibouti ku soo saxay ha ahaato ama kuwa Ethiopia ku soo saxayso ha ahaatee runtii faahfaahin far badan baa lagaga baahan yahay Somaliland dhalinyaradeeda iyo golayaasha aqoonyahanka waxaan ku baaqayaa heshiiska markay xukuumaddu soo qaado waa safiirada waxay soo qaaday inaga ayuu inaga go'ay ayntuna caadifada ka deyno oo reer hebelnimada ka deyno oo mucaarad iyo muxaafidnimada ka deyno aynu si dheer oo qoto dheer uga fiirsano waayo waxaan waa masiirkeeni maaha wax cid gaar ah khuseeya si darteed hadaynu u aragno in heshiisyadaas oo kale Somaliland iyo dalkeena iyo dadkeenaba ay dan ugu jirto waa inaynu si mugliyo miisaan loo taageerno oo aynu dawladda isbarbar taagno si dhib yar in la saga galo heshiis konton sano ku kacaya ma hawl yara laakiin haddii la xaqiijiyo konton sano waxa ma aha Britole heshiisyada adduunka imika qoriyo iyo awood deelasuma awood sheegtay siyaasadun baa lagu wada shaqeeyaa aqoone de 30 sano dhalinyarada lagu soo tabcayay hadii maanta wanaaga iyo xumaa kala garan weyno waa inuu taagnaano maya badayadu sa ha ahaato halka Djibouti baa tusaale noogu filan 7 quwadooda kamid adduunka ayaa jooga manfac iyo waxa weeyaan wanaag mooyaane de wax dhiba kuma qabto maalinta taado heshiis ka dhamaadana de si dhib yar bay saga raysaa yarba waa dal Soomaaliyeed waana walaaladeen inaguna siyaasi lamida aynu dalkeena maalgelimaha iyo dadka ku soo dhiiranaya iyo dawladaha aynu jaarkanahay inta baynu ku soo dhaweyno heshiisyadana de adeer aqoon baa waxaan garanaysaa ay ka turjuntaa leesma afduubee de waxa weeyaan waxayna fahmi kareen meesha kuma qornaa luqadda doonayna ku qoran karnaa tii alla teen u baahano aynu ku qoraynaa heshiiska aynu ka fiirsano oo aynu eegno oo aynu aad isaga tijaabino horta inay waxay wax ku bedelanayno iyo waxayna soo galayana aynu isu miisaano hase ahaatee yaan marnaba
shalay buu imaaraadka iyo carabta dhan saxara ahaayeen Soomaaliya looga gurayay iyo Soomaaliland looga ururin jiray dadka xajka ku socdaayay ayaa u sii qaadi jiray waxyaabo yar oo ay hadiyad iyo waxyaabo lagu noolaado ceelasha shidaalka markii laga qodayay heshiiska boqolkiiba 70 shirkadaha ajaanibka ay qaadanayeen boqolkiiba 30 iyo boqolkiiba 25 iyo boqolkiiba 50 wax ka hooseeya la siinayay waa u samreen markii heshiiska dhamaadana gacantooda soo galay iyaga maamulay waa kuwa maanta dhaqaalahoodii meel kasta de mugresa uu gooyay magac iyo manfac bay ka faa'iideen inaguna siyaasada limada dalkeenu waa hodane insha Allah ta'ala inuu heshiisyada caalamiga iyo dawladaha aynu jaarka nahay waxaan isweydaarsanayno inaan xasaasiyad ka qaadin dawladda nimanka jirta tii korisabad dagaalkii nagu haysay iska cadaa tanina kii la mid ah bilowday wax la yiri haday dib leeyihiin dabadooda ku qarinayaan Soomaaliya haday awood leedahay ama ay dawlad tahay ama ay wax tari waxna dhibi karto waxna dumin karto waxna dhisi karto runtii madaxtooyada xamarna waxa ilaaliya ajaanib dalka kala badhna waxa jooga ciidamo shisheeye wax ammaan oo ay gacanta ku haystaan ma jiro iyada ayaa dawladnimadeeda lagu ilaaliya haday maaliyad tahay iyo hadii ay tahay ciidanba runtii iyadoo caynkaas ah inay Soomaaliland 30 sano nacageeda ku taagneed oo iyadu haday tahay horumar dhaqaale iyo haday tahay mid dhuleed iyo haday tahay mid bulshada aan yadan cidina aanay ka taageerin iyadu cageeda isku taagtay inay maanta ka daba qaylisaa runtii waa nasiib daro wax la waxay soo kordhinaysan ma jirto midnimada Soomaaliya ay ku celceliyaan runtii way sii fogeynaysaa waayo annagu waxaan u aragnaa hadaan dhalinyarada nahay wax noo soo kordhay shalaba DB wal markii la dagaalamaysay ee ay ambaareysay waanu arkaynay ma fiicina maanta waanu haynaa tanna waa tiyo kale wax walaaltinimo iyo wanaag naga dhaxeeya nimankaas waan anigu aaminsanahay ma jirto waa Soomaaliya haday tahay walaaltinimada ku celcelinaya hadii walaaltinimo jirto de horumarka iyo wanaaga noo soo kordha inay nagu bushaareeyaan behed oo ay nagu taageeraan behed laakiin inay dagaal nagu soo qaadaan waxay tusaysaa inaan waxba la soo hayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay madaxweyne oo kugu bogaadinaynaa horumarka ballaaran aad ku talaabsatay waan aragnaa inaad ka ilmeysay cadawgii Soomaaliland Ethiopia safiirka way kala baxday Soomaaliya waa sidoo tagay oo heshiiska ula galay madaxweynuhu Kenya wada qorsheynaysa Kenya tag madaxweyne safiirka kala baxdo Mareykanka uu qorsheynaya madaxweyne Soomaaliya wuxuu sheeganaa Soomaaliya madaxweyne safiirkii Soomaaliya Kenya Mareykanka fadhiyana isagana la soo baxa dhamaanba madaxweynuhu wuxuu ku gala bixin doonaa safar waaweyn oo xataa Imaaraadka kamid ah meelu tagi doono dib safiirada baa guran doontaan baan filayaa safiiradiina iska soo gurta aadna waa mahadsantiin